اوكي. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على أفضل رسله وأكرم خلقه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله. ولا ليال waxaan ilaahay baa mahadle tabaaraka wa tacaala. waxa aan akhrinayay saacad dhaweyto suuratu al-Israa. anoo akhrinaya suuradaas kitaabka ilaahay ka mida waxaa madaxayga ku soo dhacay arrimo aad u culculus oo baryahan dalka Djibouti ka dhaca. waxa weeyaan ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nuur lagu ifiyo mugdiyada kadibna ku tusa fasaadka iyo inxiraafka iyo dariiqa saxda ah iyo dariiqa khaladka ah. ilaahay suuratu an-nuur wuxuu ku yiri subxaanahu wa tacaala allahu nuuru samaawaati wal ard. ilaahay baa ah ka ifinaya samaawaadka iyo arlada. aayadahaas markuu ilaahay ka hadlayay wuxuu keenay كلمة عجيبة أو لده نور على نور، نور على نور. علماء الوحي دهدين سيدة إمام غزالي رحمه الله نور الوحي على نور العقل. نور كوحيك يا قرآنك يا السنة يا نور كعقلك منهجك ميتولوجيك يا أنهين عقلك مارتي حيوانك أدو لبدا أنهين يا عقلك صحضة لبدا هديس هلان adduunka waxaa ka dhalanaya ka curanaya hab wanaagsan oo qofku uu ku kala garan karo saxda iyo qaladka. cajiib. quraankan ilaahay tabaaraka wa tacaala aayadda 16 ee suuratu al-Israa iyo aayadda 17 ee suuratu al-Israa ilaahay wuxuu ku yiri wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا القرون من بعد نوح إنه وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إلهي سبحانه وتعالى وحاولي أيضا لبدا آيادات طبعا يلح طبعا يتضبع إلهي يلي هدان ربنا inaan burburino dhul iyo deegaan oo sunnihii ilaahay uu yimaado inay burburaan haddeetay ka baxaan istoriga. maxaa dhaca? amarnaa waxaan amarnaa mutra fiiha kuwa qooqan ee lacaglayda ah xoololeyda ee madaxda ah iyaan amarnaa inay ilaahay adeecaan. fafasaquu fiiha markaabay iska diidaan oo way ku dhex qooqaan buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. marka ay halkaa gaadhaan fafasaquu fiiha faxaqa calayha waxaa ku noqda xaq korkeega alqowlu hadalkii ilaahay sunnihii ilaahay. markaabuu ilaahay fadamarnaaha burburiyaa tadmiiran burburis. subxaana allah. ilaahay wuxuu yidhi waxaasi maaha wax cusub, arrin cusub oo maaragtay aan horay loo arag ma aha, waa arrin soo jireen ah. وكم أهلكنا من القرون إمس أيام باب إني أمضو حوق بدنا إتال بدنا حول بدنا سلطة يباور بدنا إمسان باب إني من بعد نوح نبي نوح دبدي وكفى بربك وحاكو وفل النبي محمد الله بذنوب عباده دنبيضا أدومه سقاليان خبيرا ومد بصيرا أركيانا سبحانه وتعالى. أوكي. waxaan jeclahay markaa aan suuradda ka hadlayo inaan tilmaamo aayaddan wa idaa aradnaa laba qiraa'a ayay ku soo aroortay oo qur'aanka caamatu ahli lxijaaz yani laba si baa loo akhriyaa bitakfiifi lmiimi wa tashdiidihi baa lagu kala akhriyaa. in miimka la fudaydiyo amarna wa idaa aradna an nuhlika qaryatan amarna iyo wa idaa aradna an nuhlika qaryatan amarna miimka oo la adkeeyo. labadan qiraa'o way isbuuxinayaan. waxay yidhahdaan culummadu waxaa ka dhaxaysa takaamul. waliba waxaan sheegi doonaa mufakirka weyn ee reer ciraaq ee ku takhasusay cilmiga basharka iyo cilmiga taariikhda
iyo cilmiga dumista ummadaha iyo horumarka ummadaha oo la yidhahdo Cimaadudiin Khaliil kitaabka uu ka qoray aayadan isagoo isdul taagay ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu furay baan isla eegi doonaa marka waxa ka dhaxaya labada qiraa'o takaamulul manhaj way isbuuxinayaan manhajiyan aayadda qiraa'ada hore maxay leedahay marka aan rabno inaan magaalo deegaan wadan xadaaro aan burburino waxaan waan amarnaa ilaahay baadil ma amro uu amraa muxuu amraa in la adeeco laakiin madaxdii baa diiday inay ilaahay adeecaan fafasaquu markaa bay qooqaan fasaqu waa qooq fiiha qaryaday ku dhex qooqaan markaa taasi waa qiraa'adda labaad waxa weeye waidaa aradnaa haddaan rabno an nuhlika inaan baabi'ino oon halaagno qaryatan deegaan amarnaa waxaan madax ka dhignaa mutra fiiha kuwa qooqay baa madax noqda dadka caqliga yar ee caloosha ka fikira iyo farjiga labadaas yani cawradu ay u tahay maan oo hadduu cawradu kacdo caqligu jireen ambase calooshu hadday ay gaajooto ma gaajooto kuwa oranaya ya gaaja xaaraana wax walba caloosha gelinaya kuwaa baan u dhiibnaa buuri ilaahay maamulka amarna iyakaa qabsada sallatnaa calayhim shiraaruhaa dadka xun baa kor taga kuwa fiican baa laga adkaadaa marka maxaa dhaca fafasaquu fiiha way ku qooqaan faxaqa calayha alqowl marka hadalkii ilaahay baa yimaada fadamarnaaha tadmiiran markaas baan baabi'inaa cajiib weyaan aayaddan waxay ka hadlaysaa manhajiyatu damaar ashucuub metodolojiga la maro marka ummad la baabi'inayo sida ay u jiraan aayado ka warama metodolojiga la maro marka ummad la dhisayo alimaam maxamed cabdo raximahullah imaamkii weynaa ee ardayga u ahaa jamaal addiin alafghani raximahullah ee macalinka u ahaa alustaad alkabiir rashiid rida raximahullah ninkii qoray tafsiirka almanaar oo inta badan tafsiirkuba uu yahay ra'yigii sheekha weyn ee maxamed cabdi qaala uu leeyahay wuxuu yidhi imaamku sheekhu wuxuu yidhi markaa buu qoraya tafsiirka marka uu leeyahay sidaana waxaa yidhi wuxuu u jeedaa maxamed cabdo raximahullah oo ahaa culimmadii waaweyneed ee azhar dib inay u hagaajiyaan reformi ku sameynaya jaamicadda ugu weyn islaamka ee alazhar wuxuu yidhi ummad marka ay dumayso fasaad baa jira iyo islaax wuxuu yidhi waxaa jira qaacido regal norm isla soconno oo cajiib wuxuu yidhi ummad marka la dhisayo albinaau walislaaxu yaأtii min alqaacida ila alqima okay ummad marka la dhisayo dhismu wuxuu ka yimaadaa hoosta kor buu u kacaa haguu tagaa kor buu aadaa macnay ku fadhidaa fasaadkuna kor buu ka yimaadaa hoos buu aadaa okay ummad iyaa dhisa waxaa dhista ducaadda culummada aqoon-yahanka mufakiriinta filosofiyada murabbiinta hooyada wanaagsan aabbaha fiican dadka normalkaa dhisa manhaj baa dhisa ummadda marka dadkaa la dhisay baa kor aada markaa ummadda horumar gaadhaa ummaddu markay dumaysana yaa dumiya madax baa dumisa marka imaamku muxuu leeyay maxamed cabdo alfasaadu yanzilu min calin ila asfal fasaadku kor buu ka soo dhadhacaa hoos buu soo aadaa wanaaguna hoos buu ka kacaa kor buu aadaa nebi maxamed markuu yimid sal allahu alay wasalam uu dacwadda bilaabay kor kama bilaabin wuxuu ka bilaabay hoosta wuxuu dhisay jiil wuxuu dhisay qaacida sulba dad adag buu dhisay wuxuu dhisay alkutra alxarija dadka aan la bedeli karin ee nolosha iska celinayuu dhisay wuxuu dhisay dadka ilaahay rumaynaya ee markii laiskugu yimidna yiri ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum muxuu ila yidhi fazaadahum iimaanan adduunkao dhan baa isugu ka yimidee cabsoodaa lagu yidhi iimaan baa u biiray wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil bay dhahdeen oday yaa dhisay kuwa nebi maxamed baa dhisay sala allahu calayhi wasalam ikhwaanii fillah haddaba walaalayaal hoostay ka imataa dhismuhu xumaantuna ka imataa kor bay ka imataa okay walidaalika ayuu yidhi alimaam ibnu lqayim raximahullah kitaabka uu qoray ee la dhahdo addaau waddawaa hadalkaa u fiirsana kitaab buu qoray dhahdo addaau maxaa dhahda waddawaa jiradii iyo dawadii cudurkii iyo dawadii yani kitaabka wuxuu ka sheekeeyey aladwaa cudurada ku dhaca dadka bini aadanka ah marka ay diinta ka dheeraadaan kuwa ku dhaca siyaasiyiinta kuwa ku dhaca culmaa diinka kuwa ku dhaca dumarka
kuwa ku dhaca ragga, kuwa ku dhaca bayca mushtarka, kuwa ku dhaca murabbiinta, kuwa ku dhaca ducaadda. yacni qof walba adduunka jiruu leeyahay inuu iska ilaaliyaa. jirooyinkaa buu qoray. jirooyinka u kala saaray furuuc iyo usuul. wuxuu u kala bixiyey jirooyin asal ah oo original ah oo meesha uu ka imanayo cudurku ah iyo jiradu, iyo kuwa ay farciga hoos ee ka soo firdhanaya ayuu u kala saaray. kitaabkiisa addaa'u waddawaa ibnu qayim aljawziya baa dhal. ibnu qayim alif iyo laam male, aljawziya markaa ku daraysaa, amba waxaad odhanaysaa ibnu alqayim waxaa iska daynaysaa aljawziya raximahullah. marka ibnu qayim aljawziya amba ibnu lqayim uu ahaa caalim weyn oo culimmadii islaamka ah, ardaygii ibnu taymiya ah raximahullah amba raximahullahu calayh, labadooba ilaah u naxariisto tabaaraka wa tacaala raximahum allah. wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya fasaadka, yaa xumaanta iyo abuura, halkuu ka imartaa fasaadku? dad fara badan waxay aaminsan yihiin fasaadka wuxuu ka yimaadaa shicibka. dhegeysa imaam ibnuqayim raximahullah fi kitaabihi addaa'u waddawaa: wa aslu fasaadi alcaalam inamaa huwa fasaadu ikhtilaafi almuluuki waalxukaam. wuxuu yihi asalka fasaadka adduunkuba wuxuu ka yimaadaa fasaadka ka imanaya khilaafka, isku dirka, boobka maaragtay xukaamta iyo boqorada. markaa muxuu yihi sheekhu, marka ay acdaada islaamku arkaan inay iskhilaafsan yihiin madaxda muslimiintu, ay ka shaqaynayaan inay waxuun cunaan oo caloosha iyo farjiga u fikirayaan, markaabay shaqaystaan buu ihi acdaada islaamku. sheekhaas wuxuu yihi raximahullah, marka uu mid waliba infarada kullu waaxidin minhum, mid walba markuu xukunka la keliyoobo uu gobol qaato, wa talaba uu mid waliba bacduhum calaa bacdin alculuw, barbarbarka kale inay ka sareeyaan ay doonaan, ay saa kursi un isku diraraan, marka wuxuu yihi waxaa bilaabma fasaadkii kownka xumaad. idan muxuu yihi sheekha, markaa luqadda casriga haddaan ku hadalno, aslu lfasaad waa siyaasad, aslu salaaxna waa maxay? waa siyaasad, waa methodology. ummad sida loo dhaqo iyo ummaddu noqotaa. haddii ummadda lagu dhaqa fasaad, ummaddu way xumaanaysaa. haddii ummadda lagu dhaqa wanaagna, ummaddu way ficnaanaysaa. iyaa ku dhaqaya ninka ugu sareeya iyo kooxda ugu sareysa, siday yihiin unbay dadku ahaanayaan. annaasu calaa diini muluukihim, dadku waa diinta boqoradooda. anugu waxaan ku daray kelmadaas falsafiyan, annaasu calaa nidaami diini muluukihim. dadku waxay ku dhaqmaan nidaamka madaxdoodu ay ku dhaqanto. systemka wadanka u yaala hadduu yahay system fiican, dadku way ficnaanayaan. systemku hadduu wuxuu yeerda, dadku way xumaanayaan. waxaan ku daray uun annaasu calaa diini muluukihim, annaasu calaa nidaami muluukihim. diintu waa nidaamkooda, waa isku mid weeyaan. okay, kitaabka ibnulqayim aljawsi raximahullah addaa waddawaa waa kitaab in la akhriyo u baahan. eeg aayaddii qur-aanku macnaya, waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa, tii cimaadiin noo soo soconaa, amarnaa iyo amarnaa maxaa ka dhexeeya? reer jabuuti, reer soomaaliya, reer suudaan. iminka meel dhowtan waxaa arkayay madaxweynaha suudaan oo wadaada oo intaasoo sano wadanka xukumayay 30 sannadood, oo culamo yaroo masaakiina intuu soo urursaday leh, dadka waxaa ka tiraadiin madaxweynena adeeca, iska haysta, ilaahay ka cabsooda, siduu doona hani xukuma, gaaji hani disho, isaga daba jooga. culamadii waaweynada sida lagu yaqaanina ma hadlay, waa kuwo kaloo la garanaya. sidaa un bay samaystaan culamo. wadan kastiba waxaa la samaystaa marka fasaadku yimaado culamo dadku aynu hore u aqoon oo meel ay ka soo baxeen aad garanaya, kaannahum nazaluu min asamaa. ikhwaanii fi llah walaalayaal, waidaa aradna an nuhlika qaryatan amarnaa. miimka shad ama miimka jirci waa isku mid. imaamdiin baynu sharxi doonaa waxa u dhexeeya. kitaab kale ayuu qoray wadaadka la yidhaahdo ibnuqayim amba ibnuqayim aljawziya raximahullah. kitaabka waxaa magaciisa la dhahdaa iclaamu lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiin. iclaam wuxuu ogeysiinayaa kuwa ka saxeexaya ilaahay. almuwaqic waayo waa caalimka. caalimku markuu ku leey waxaasi waa xalaal, ilaahay buu ka saxeexaya inay xalaal tahay. beri waa la weydiin doonaa. waxaasi waa xaaraan, ilaahay buu ka saxeexaya. kuwaabuu kitaab u qoray uu leeyahay horta sida loo maro dariiqa lagu gaadho xal qur'aanka iyo sunnaha looga saaro, dariiqee la maraa. 3 foolim 3 mujallad weeyaan kitaabkaasi. aclaamna waa loo akhriyaa, iclaamna waa loo akhriyaa. sheekhaas kitaabkaas wuxuu ku yidhi raximahullah, alwaali ninka waaliga ah ee madaxa ah,
والقاضي iyo ninka jeeshka ah ama jiishka ah ee qaadiga ah xaakimka ah والشافع iyo ninka shaafica ah wuxuu yiri mamnuuc waxa mamnuuc ka ah min qubuul الهدية inay hadiyad qaataan hadiyadu waa maxay hadiyadu maxaa dhada in afka ingiriiska maxaa hadiyada dhada sheekho gift baa dhada ingiriisku afariiskan waxa dhada kadu gift amba kadu amba hadiyad Soomaaligeena qofku inuu aqbalo waa mamnuuc iyo saddex qolo ninka qaadiga ah oo jeeshka ah ninka xaakimka ah ee ummadda xukumaya madaxa ah wasiir ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo iyo shaafica saddexda looma ogolo mamnuucun min qubuul الهدية dastuurka Mareykanka waa lagu qoray dastuurka Faransiiska waa lagu qoray dastuurka Jarmalka waa lagu qoray Ingiriiska waa lagu qoray adduunka oo dhan dadka cilmiga la way qaateen hay ka soo qaateen annaka naga soo qaateen imaamkeenu muxuu rahimahullah waa 9 qarni ka hor wuxuu leeyahay القاضي الوالي ومدحي والقاضي وجشكي والشافع نكي شفاعة قاضي ممنوع وحا كريبا قبول الهدية إني أقبلان هدية دلو كانوا أقبلين وحرام وهي محمد كارعي هقاس وهو بول هدية لقاته أصل الفساد في العالم سبحان الله العظيم فساد كأوين أبدو كدع كابا وأصل يقول هدية أقبلي ما كتبنا حولها دولة قادم سيد أفريقيا كدع وهو أصل فساد العالم أفريقيا بحابة بينا يا كورنيا الدون كإسلام كم بحابة بينا ابن القيم باكو شيء رحمه الله أيضكم عنا وحكوليه هديتنا يقبلان بحركتها هديت إنا مدحوينها هديت لو كانوا وحرام لأنه والله جبينيا نبى النبي قدري زكو إنه صاء الريو وكرت جاي نكى مالك أورني خزينة الدولة الترازورية العكس صاغر بوكين وصاغري مركو صاغري النبي جو كان صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وكان حولها صاغري يابان مركز كسو قادي وطن حول بدن انتنا انا اللي سو هدودي انت عدا لو صدري ودولدي waxa loo soo diray maamulki waa powerki dawladda ale intana ana le buu وهذا لي nabigu muxuu ka yiri salaam la jalasta fi bayti ummik gurigi hooyada ma fadhiisatid oo markaan dadku ay ku keenaan dadku adigu kuma keenin kursiga u keeneen kursiga la gubaynaya wadii arkay Afrika ninku markuu madax yahay dadku baabura lagu sidaa waa loo yeeraa waa la xambaaraa waa la sitaa qofkii dhafo waxba u keenaa ayaanta shaqada lageeyay waxay dhadaan kabiisi waa uray xuma qabtaan kabiisi waa uray koornaa wuxuu noqonayaa lacag wa anigi horena inagu sheegay raggu waa saddex waa anigi iri raggu waa saddex ninku nin ah maxay wuxuu ninku yahay ninku kursiga hadduu kursiga waayo ninnimadii waaya ninna wuxuu nin ku yahay muxuu ku yahay lacagta hadduu waayo ninnimadii waaya midna wuxuu nin ku yahay nin kale oo daba jooga hadduu ninka daba joogin wuxuu waaya mid afaraad baa iminka jiro waa ninku naag islaantu ninku yahay hadduu islaanta waayo naagta waayo nin ma noqonayo idan halkan marka maxay nooga soo baxay wa huwa muxuu yiri sheekhu in la aqbala kaadu ma in xoolaha la qaato dawladda maaha in ummadda la boobo maaha in qofka inta la siiyo qadaraas rado aqal soo dhis amba iskuul soo dhis intaana aniga ay keenay maaha taas waa mamnuuc waxa mamnuuca hadiyad inaad aqbashid saacad in lagu keeno saacad buraayad in lagu keeno maarta shaft in lagu keeno in surwaal lagu keeno kabo in lagu keeno adiga oo madaxa waa mamnuuc shariicada islaam waa quluul waa xaraan waa min al-kabaa'ir waxay ku jirtaa toddobaanta ka dambi ugu waaweyn ee ibn arabi uu ku qoray kitaabkiisa al-kabaa'ir rahimahullah idan waxaan oranay maxaan sheegnay ikhwaani fillah arintaasu ibn qayyim i'laam al-waqi'i ku sheegay ayaan sheegay wuxuu yiri ibn qayyim rahimahullah wa isnaadu al-amri ila khayri ahlihi qof aan u cuntamin marka loo dhiibo amarka wasiir waa in adeerkay wasiir waa in abtigay wasiir waa sodog baan u hay wasiir waxa maartay gabadh xaaskaygu dhalay xaaskaygu inantay dhashay uu qabaa isnaadu al-amri ila khayri ahlihi qofka waxaad ugu dhiibaysaa waa qaraabo waa sidii ninkii Soomaaliga ee ka qoray maartay cajiradda ka qabtay Djibouti ee yiri ma sharikad qoys leeyaha mise waa wadan isnaadu al-amri ila khayri ahlihi wa tawliyati al-khawana iyo dadka khaa'iniinta ee dumarkooga gogol dhaaf ku sameeynaya marka loo dhiibo maamulka tawliyatu al-khawana khaa'inku waa maxay
ونك إلهي خائنة حاسكيس خائنة بلشد خائنة شقد خائنة هذا يسمى خائن وتولية الخائن والضعفاء كو إيتال كدارن وحبن أنقبنين والعاجزين يكون عاجزين تا مركا أي قوان وحوري وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله وحوري هدي أرنتها سيدعضو وحا ودنك كدعي فساد أن استشتك سوغلي كريم أن لكوبي كريم إلهي أمبا كوبي كرا سبحانه وتعالى أركا وحايري ابن القيم الجوزية ابن القيم رحمه الله إخواني في الله وذاتك اللي يدهدو عباد الدين خليلنا رحمه الله وحكو لي كتابك أو كقرأ عمر ابن عبد العزيز إيه كتابك أو كقرأ ترفك ذاتك الحول ليه ده وأمد بابا يمركي مدح نقدان إيه كتابك أو كقرأ ابن خلدون صدوق أخري الدولة ده يبربر بسوء أخري كتابك أو كقرأ انت بوحولي أمرنا وحا كدحايا وحا ويان أمرنا نينكا حول ليه ده إيه نينكا مدحوينها هديه هشيان أمده وهشيان إن العقل هدي وزير لقدقه مدحوينه العقل هدي مدحوينه النقضه وحي ميكا لوغا عبسونيا دالكي إلا أمريكا لون يو اس آر هدي بعد أريتاسي أمده والله عبسونيا ما لوغا عبسونيا لأن المال يكاد مالك وحو كسجي إنه كأور بلشده ويكا كأور يكا كربو كعي مالك هوستو كسو كعي وحو قالي دونا جواب خاص وقالي دونا أقل كالغو أورين سيدي علي عبد الله صالح gurigiisa markii la dumiyay hoosta loogu tagay lacagtii oo fadhida malaayiin shaki kuma jiro hadii la baaro guriyaha qaarkood oo la faqo in loogu tagi doono milyaaro lacaga oo ummadda reer Djibouti ummadda maarta Afrikada bari dadku muslimiintu ay ka gaajoonayaan ikhwani fi Allah amadi khalna saasudi rahimahullah waxa isweydiisaa adigu muslim baa tahay bini aadan baa tahay maxkamadii la dhaku taalay waxay xakuntay Cabdiraxmaan Boore Djibouti lacag ma soo xadin oo shaqaystay sidoo uu shaqaysto dawladda Djiboutina waxay ku xakuntay 15 sano oo xadhiga waxaana xakumay nin xaakima 15 daqiiqo ku xakumay ninkii wuxuu kadib noqday wasiir baa laga dhigay wasiir hadii uu xol ma qarqarneed wasiirka shaqada laga dhigay Cabdiraxmaan Boore iyo ninkaasina waa qaraabo والله دورنا حتى قفك حكومية والله دورنا أوكي مركي أي ستو كعدي علماء كبيرين إنه مدة سرجوا جنينا نكي أوبا أنك محكمة اللوكيو سنة دي بعد مسخية حكومية والله بدي شيء وسمي وحكون نقدي وزير لكن دم بيجي وقالي إمك أو ضمينا يا ما أنت وركي سنة هنا أو ضمينا يا كوري يسيب أولويا waxaan u wasiir ka dhigtay Ismaaciil Mageel guriga oo leeyahay waa ajiib wa ida aradna an nulika qaryatan halkan bay joogeen magaaladan orod baa la yaacay waa la soo yaacay waa la sii yaacay ولوليان يحرقون يحترقون فساد وفساد ميتودولوجيا وحكى له اني شغايا ظاهر احمد فرح والله يقان الضاف نورش ودن با laga xiray cunta loo diiday gaaja lagu dilay koranka laga gooyay akhiran islaantiisi xaaskiisi ba shaqada laga yeeliyay oo baxsaday markuu naftiisa oo cabsooday wuxuu tagay Belgiga kadibna waxa la soo saaray wax been waraqada been la qoray Eritrea noo soo raacay baadhi dumar ciidana iyo la ururiyo kumar khaati fura kumar khaati ka furo waa kuwa soo baxsay faaiisa kamida fanaanada Canada joogtay imika kuwii diiday wixii kale tana markhaatiga qasab ku fura laga leeyahay daahir baa sidaa yiri uu nacaayay wadanka uu caayay ciidanka uu caayay si looga reebo inuu tartanka siyaasadda la galo isagoo sharci xaq u leh daahir Ahmed Farax okay لماذا محاسة الله سبحانه وظلمي وإذا أردنا أن نهلك قرية صدح وحدوقتهين عبد الرحمن تيجس نكر هذا اللي يرضى وحو هلي ورشدي ميريجا إيه مجال ده وحو كبدي دمان أعزابت EMP أردن كليجي راد كوي كلا لام ضدكم الرعين عبد الرحمن بين رعين تيجس لكن عبد الرحمن تيجس شغدي بالجري جاجا لقدري حاسس كسبة بلجيك تجي أو بحصري كل ذلك ما أنتنا نقرأ أليكسيس وحصو صاري إنه عبد الرحمن ودنك وكحيقو لماذا؟ لأن عبد الرحمن هو قبيل كلام عبد الرحمن قلق لا تهي ما دام قلق لا تهي وأنك أن نجمدها قلق أن هي وحاتهي بكري أليكسيس لأن أن ودك أنا وكاحيقة مدحوينها أنا وكاحيقة هو مدحوينها كاحيقة
markuu madaxweyne yahay maaha kama xigtid ee markuu qof yaad ka xigtaa laakiin markuu madaxweyne kama xigtid waa qaladada la galay dowladdii iyo waxaas dhex galay qabiilkii waa fasaad okay fasaadku mu istaagaya ma istaagayo rasaas baa loola soo galay rag la yidhaahdo ESN oo meel iska fadhida waa lagu furay sida ciyaalka waxaa dhaawacmay nin dibiteeya Saddam loo yaqaano oo dibiteegii ugu dhal yaraysnaaya oo xisbiga maaragtay EDG ka dhaxlay aabihii weynaa ee qaranka Ismaaciil Geedi Xarad aabaashii qaranka kamid ka dhaxlay iyo rasaasaka ka dhacday waa ka maaragtay qaxootiga ku Belgium ay maaragtay u gurmadeen hay'ado waxaa kaloo ku dhacday Dr. Xaamid Cabdi Sultaan wasiirka awqaaftaha oo wasiirada ugu fiican ahaa wad garanaysiin halkaa bay ka dhacday rasaasu soo soo shibishka waad aragteen maxaa loo dilay maxaa labada loo doontay dadkoo dhan maxaa looga doontay wax u baahan in la baaro waxaad ogtihiin dad dhan oo mawlid iska dhiganaya inta duwaabadii wadanka la saaray inaad gigantiga laga dhigay oo lagu baabiyey okay nin yar oo ciidanka qaranka ah oo qoraal ah iyaa qoray bahal yari magaaladii Djibouti waa lagu gaajoonayaa ciyaalku waa bilaa caano uun buu qoray dariiskii baa laga dhigay darajadii baa laga dhaadhiciyey orod buu magaalada kaga baxsaday Rashid waad garanaysaa arrimahaas ka sheekayno fasaadku waa methodology fasaadkii halkuu socdaa markaa fasaadkii wuxuu socdaa iyagu u tagay fasaadku isma taagayo iyakii baa isdiriraya iminka islaamihii iyo ciyaalkii suuratu Yuusuf baan macnayn doonaa iyadana waxa ka dhacay suuratu Yuusuf Sulaakhiyo wixii baa ka dhacay aqalka dhexdiisa wixii ka dhacay fasaadka inta laga dhacay marka ninkii xaaskii laga furay iyo wasiirka caafimaadka ahaa ee qooqana ee isku maleeyay inuu adduunka Superman anigu bixiyo magaciisa hirgalay wasiirkii Supermankii maxaa ku dhacay ikhwaani fillah isaga ileen waxay ka yiraahdeen waxaad ka imatay Vietnam waa xaafadii balbala ku taalo faqiira yaad ka imatay ilaa waxaan ku keenay haramuus waa ugu celinayna baalid okay celisti maxaa ka dambeeya xaflad bay dhigtaan wali lama arag dad islaan la furay oo loo dhigay xaflad kambiska lagu qabto wa idha aradna an nuhlika qaryatan wa qaryatan amarna mutrafiha wa faanayna marsake waan iriniki iswalwalay waan irini aqalkii baan ka saarnay yani waa marka ay talinayaan marka ay maartay suleekha talinayso waa problem xagga suleekha ka talinayso amaradii suleekha socda waa samee lama oran kale waxaan sameyn wax xaraan gabadh la furay waa naxdin guri dumay kacbada mahaj arshiga ayaa qarqariya nabiga sallallahu alayhi wasallam abqadu alhalal ilaahi wuxuu xalaaleeyay waxa lagu cadho badan yahay at-talaq divorce in la furo gabadh la furay wax lagu faana ma laakiin gabadhu iyada furtay isagu ma furin diinteena ragga laga fura laakiin waxa yimiday waqti ay naagu ragga furan limaada li'anno powerki baxistaan okay waxaas oo dhan baarka Djibouti hadaa tagtid fasaad baa ka socda manhajiyan methodology habliya reer Djibouti iya bixi karila oo ka bixi karila wasiiro methodology waxa wixii xamar ka dhacay muqdisho kiilo ka tanaadiyo habliya la tagi jiray ee maartay geedaha hoostiisa lagu garaashin jiray nafsuha ayaa ka socota fi Djibouti fi العاصمة بلد فقيرة marka ikhwani fillah halkaas socda وإذا أردنا أن نهلك قرية وحن قرنين مركان بابعيني لكن بابي والله فصحي هيدا القرآن مركان دقاقنا بابي وفصحيها إيانا بابينا يا وحن بابينا يا مدحدينا مدحدا لدى قال لما يسأل علماء باسبورة كقادسة ورقضها كقادسة مارت الدنيرة حقوق ودى قال لما خطر باسبورة محل كقادسة وحاس وفساد سمينيسا الدقالك انت اللي كجرتاي waxay ugu jirtaa wax weeyaan dawladdaasi dawlad ma ahna xukuumaddaasi xukuumad ma ahna kooxdaas ma ahna wax weeyaan burcad badeed ma waa burcad dawladeedka wadanka ka jira wuxuu u baahan yahay inay dadka reer Djibouti iska qabtaan si u badbaadiyaan qarankooda iyo dalkooda walaalayaal ayada quraanka ilaahay wuxuu ku leeyahay imisaan baabiinay oo quruna min bacdi nuux wars qadaafi baa socday ali abdallah socday Saddam baa socday Zaire ninkii xukuumay milyaarada haystay iyaa socday gaajo ku dishay maartay Maroc waxa socday maxaan ku radaa boqor bukaasa socday waxa socday Siyaad Barra socday waxa socday Mengistu Haile Mariam alafaangi imika Ethiopia isbedel baa ka dhacay muxuu yiri madaxweynaha Ra'iisul Ethiopia markii la weydiiyay terrorka iyo irhaabiga waayo macna wuxuu oran jiray culimadu waa irhaabiyiin iyo irhaabiga dawladda irhaabiyiin waa nin fiican ninkaas abi Ahmed Muudi
irhaabku waa dowladda dadka intay la gasha aqalo ku cadaabaysa sidii maxamed daare ku sameeyeen amba sidii ay ku sameeyeen maxamuud shahiidkii ku dhintay xabsiga ku dhintay allah yarxamo ee ciyaalka u dhigi jiray tacliinta macallinkii juqraafi xisaabta iyo maaragtay faransiiska taariikhda dhigi jiray hada alustaaz macallinkii profkii iyaa lagu cadaabay oo lagu dilay wadnaha lagu joojiyey fii leylatin dalma habeen madow allah yarxamo waa terorka ummadda bilaa caanaha ummadda bilaa gaajada lagu dilay ummadda dhulka ku haysta ee laga leeyahay kaali haddana noo qoslo sacabka noo timo kulamaa aad qosashaan idinkoo gaajoonaya ayaa anaku sii naaxaynaa baa lagu leeyahay sii farxaynaa waan isku soo noqon doonaa reer jabuuti asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu